Canada ku noolahay Ottawa waxyaalo badan doorta Canada waan ka soo qabtay oo kaga soo bilaabay dhinaca education-ga inaan sameeyo bac en histoire markii dambana en education markii dambana maîtrise histoire aan sameeyo kolka historien iyo pédagogue baan ahay macallin baan soo ahaa iskuulada soo dhigayay muxuu ahaa secondaire-ka c'est-à-dire lycée-ga halka noqonaysa maxaa la yidhaha markii dambana cadre noqday oo de gestion de iskuulada aan noqday conférence jaamacadda ka bixiya au niveau de la décolonisation au niveau de l'histoire africaine intaasina waxay dheer inaan sameeyey urur la yidhaahdo association canadienne pour la promotion des héritages africains ururkaasoo ku shuqul leh inaa maxaa la yidhahdaa uu horumariyo taariikhda iyo dhaqanka afrikaanka kolkaasi dee Djiboutina afrikaan bay kamid tahay markii ugu weyneedaan sameynay xaflado waaweyn oo dhaqankaasina UNESCO-ga la shaqeynaa maxaa la yidhahdaa waxaa la shaqeynaa diblomaasiga diblomaadada ambaasadada Canada ku yaala Ottawa maantana waxaa farxad ii ah inaan kasoo qayb galo journée nationale de la presse iyo ku dhacday inaan buuggii imika aan qoray tournée soo sameeyey Ottawa, Toronto, Paris, Londres maantana Djibouti aan joogo oo soo bandhigay le 27 décembre meesha bibliothèque nationale des archives wasaaradda dhalinta iyo dhaqankana Dr. Hill aad baan ugu mahadcelinayaa maxaa la yidhahdaa asumada ay soo dirtay si aan buugga u soo bandhigo cabdi waxaa tahay nin Canada aad ugu jecel yahay ilaa iyo director school ka noqday dhaqankana aad uga shaqeeya adigu weli dadkaaga wada jeceshahay oo adiga taariikhdooda qoraya buuggaas goorma ku dhalatay inaad qortay والله سؤال في waxa weeyaan buuggan horta markii hore waxay ahayd thèse de maîtrise كل كان سميني صح يعني sujet kan doortay oo ka shaqeeyay xogaa kadibna waxaan isla ma dadka ma loo soo bandhigo dadka hore si u ogaadaan waayo thèse maîtrise meel iska taalaa cidna ma arkayso taas ay u dhaliyeen oo ahayd si ay dadku uga faa'iideysan karaan u fahmi karaan taariikhdeena oo très souvent periodkaasi ay yar tahay inaa wax badan laga qoro marka adoo ilaa dhalinyar ilaa hadda ayuu kugu jiray inaad qortid waa test maîtrise-kaagii waa ilaa hadda in badan aad baadhay 8 iyo taariikhdii ay Djibouti lahayd bal nooga waran qodob iyo laba hadda nooga taabanayso si kooban haddaan buugga usoo maxaa la yidhahdaa usoo koobo buugga horta waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa inaan la fahmo aftigii ka dhacday 1958 se u dhacday macnaheedu si loo macneeyana siyaabo badan baa jirta laakiin waxaan damcay inaan u macneeyo horta gaaladu amba reer galbeedku sida iyagu macneeyeen inaan ka soo sheekeeyo aan garab dhigo inagu dhaqan ahaan amba waxa la yidhahdaa les institutions traditionnelles xeerarkeenu dadkeenu sideeba iyaguna u macneyn karayaan qaybtaasi horta waa qayb jadiida oo baaritaan badan kaga baanaydeen baaritaan badan suuyaal ku qornaa ma jirin exactly waan isku reebnaa hadal oral badan archive badan la soo helo la fahmo ina dhaqanku soo u socdo kolkaas sida lagu macneyn karo labada la isbarbar dhigo kolka décolonisation de l'histoire baa la yidhahdaa waayo waxa weeyaan ina inagu taariikhdeena saan inagu wax u arkayno uga sheekeyn karno weeyaan taas ayaa keentay kolka waxaan rajeynayaa inaa dadku ay ka faa'iideystaan wixii lagu daray lagu daro wixii laga gooyna laga gooyo imika waxaan diyaarinaynaa deuxième version mais horta bal version ugu horeysa nasiib darro magaalada maadaama aan tournée soo sameynay Djibouti ka imanay wax badan ma harin waxaan ka weydiisanaynaa wasaaradaha ay qusayso inay naga caawiyaan daabacadiisa exemplaire badan oo luqado kala duwan taimika deja processuski waan bilownay in ingiriisi lagu bedelo ingiriis marka lagu bedelana afkii locaalka ee Soomaaliya af Soomaaliya imika qolo kale imika aad u danaynaysa iyaguna af Soomaaliya ku bedelaan waa fikrad fiican oo wadno waxaan rajeynaynaa de energy inta leegna de waa sisay waxaan u baahnahay kameem appui u baahnahay magaalooyin badan baad ku soo bandhigtay buuggan talaabada labaad ee xigta Djibouti kadib waa wax geeyay raran kara inkastoo Djibouti dad badan oo danaynaya jiraan taariikhdeeda 8 Dardaba Hargeysa gobolka ma lagu wadaa inaad tagto
waan jeclaa nasiib darro waxa weeyaan koonsheeg intii aan haystay waqtigii way saamaxayn waxaan rabaa insha allah waxaa jira saad ogsoon tahayba daafur baalka waxaan jeeda bugfa amba maxaa la yidhahdaa sano deliver baa jirta maxaa la yidhahdaa Djibouti Hargeysa Muqdisho dhulkaasi inaan rajaynaynaa ayaguna noo yeeraan oo soo bandhigno si taariikhda loo sii barto taariikhda Djibouti oo muhiimad u leh periodkaasi عبد حتى مر حق السياسة أيات كانت دقشة العبد هذه تقرامي ونغنيها المقراي وكنت بيدنا واسلي horta bal xogaayar intaayar baan kusoo noqday siyaasad weliga kama qayb galin anigu waxaan waxa la yiraahdo promotion culturelle baan sameeyaa wax siyaasadan ku jiro ma jirto dhaqanka aad badnayd dhaqanka wala waa dhaqanka anagu dhaqanka inaan soo celino ay dadku bartaan dhaqankeena aba afrikaanka noqdaan ba inagu afrikaan baan ka binaanay kolka anagu waxa weey shaqadeedu waxa ururka idan sameeynaba shaqadiisu waxa weeyaan waa si loo hirgeliyo amba loo promotion loogu sameeyo dhaqankeena taariikhdeena iyo fikradan nagu jirta decolonisation de maskaxdeena waa aragtay maskaxdeena waa la quflo si unba wax lagu macnay inaan dadka ka sensibilisation ku sameeyno war si kale wax loo arko way jirtaa maadaama anigu de pedagog ahayna oo conference ka bixiyo jaamacadaha iskuulada soo dhigi jiray de seera marka waxaan macnaynaa waa inoo saashayo vulgarisation yar baan sameynaa dad wixii level yar oo dadku wala fahmayaan halka kale intellectual ku aan joogno dad si dalacna kolka dadkan la joogno iyaan la yar jaan qaadnaa saas weey عبدي halkan dad fariin u marinayso su'aalaha ugu badan maayo maanta fursad haday ku tahay Djibouti kula hadlayso maxaad u leeyahay والله waxaan oran lahaa in Djibouti waxa weeyaan intii rabtay in quraan noqoto horta tuu horeysa waxa weeyaan midnimada iyo maxaa la yiraahdaa la paix muxuu ahaa midnimadina wadankeena iyo nabadda inaan ku adkaysano wadankana loo shaqeeyo meesha doonti joog wixii aad experience aad ku soo kordhin kartid inaad vraiment la suuq aad ka faa'iideysid ta kale waxa weeyaan imka waxa jiray forum baa jiray heedan ma joogin baa forum diasporaga wanaga arkay discourse presidentga inuu leeyahay diasporaga waddanka u baahan yahay taana laga faa'iideysto dadkaas oo meeran diaspora iyo dadkii joogaba inay waddanka vraiment u shaqeeyaan oo la yiraahdo walba dhagciisa ha oo ka sameeyo aad iyo aad u maasanta